kulanti wacan oo wanaagsan daawada meel walbo aad naga daawanayso ku soo dhawaaw qaybtii afraad ee sheekadii garaad wiilwaal. qaybtii saddexaad ee sheekada waxay inoo joogtay wuxuu ka shakiyey in hadalka garaadka afkiisa ka soo degay iyo kandhagiisa ay maqleen ee isku mid yihiin. qalbigiisii ayaa hadalkaas rumeyn waayey. wiilwaal wuxuu ahaa nin aragti dheer, sidaa awgeed dareenka wejiga odayga ka muuqda ayuu ka shakiyey. wuxuu is yidhi malaha odayga fikradda maba keenin, xujadaana ma furin. shakiga dabadii ayuu hadal baaris ah ku soo tuuray oo yidhi, saaxiib, adigu fikradda ah inaad hunguri soo qaaddo ma aadan keenin ee yaa kuu sheega fikradda. odaygii ayaa madaxa xoqday. maya, anigu iyo hadallo kale ayuu yidhi. kadib waxa uu yidhi, tu yar oo aan dhalay oo aanan u ducaynin ayaa igula talisa fikradda. odaygii ayaa sidaas ku jawaabay. wiilwaal ayaa mar qura fadhigii haw ka soo yidhi oo dhammaan intii madasha joogta soo jeediyey. maya ayuu yidhi, idinkuma jiro hal nin oo aqli leh sidaan hore u sheegay, ee waxaa idinku jirta hal gabar oo aqli u saaxiib ah. hal gabar ayaa dhammaantiin idin dhaanto oo idinka aragti sarrayso. sababtu waxay tahay idinma weydiinin inaad hilib ii keentaan. waxaan idin weydiiyey in nin walba oo keeno cadka ragga walaaleeya. magaajo iyo ceyr ayaa igu ogeedeen ama igu tuhmayseen. hadalkayga guntada oo xigmaddayda dhagaha u fura. hunguri waa cadka rag walaala ka dhiga ama cadow ka dhiga. adduunku waa nin qatan oo indhaha ka xumbaynaya iyo mid quuta oo dibro la dac quransan. hayste iyo mahayste, taajir iyo faqiir mucsur gaaban ah. intaasi waxaa inoogu dhammaaday qaybtii afaraad ee sheekadii garaad wiilwaal. inta aan ku kulmi doono qaybtan oo kale ah, sidaas iyo nabadgelya.